waxaa ka mid ah Iran ayaa dharbaaxa lama filaanaya dabarjabis halisa ku samaysay Israa'iil kadib markii markab laga leeyahay Israa'iil ay ku xukuntay 170 milyan oo dollar sheeko yaab leh oo ka dhex taagan Iran iyo Israa'iil ayaan idin hayaa qodobada sidoo kale saaka barnaamijka aad ku maqli doonto iyana waxaa ka mid ah Israa'iil waxa ay soo jeedisay inay diyaar u tahay inay aqbasho oo ay ilaaliso xabajoojintii Sharm el-Sheikh laakiin ay hor dhigtay dawladihii damaanad qaaday heshiiskaasi shuruud adag oo ay ka doonayso Hamas iyo kooxaha kale laakiin go'aankii Hamas ayaa lagu waramayaa ee ahaa inaysan may dambe celinayn heshiiskii Sharm el-Sheikh dhanka Israa'iil uu ka burburay maamulka Netanyahu saameyn lama filaan ayuu ku yeeshay ayaa la leeyahay xiisad yaab leh ayaa ka taagan gudaha Israa'iil macluumaad arinta ku saabsan ayaa barnaamijka ku maqli doontaa qodobada sidoo kale saakaano barnaamijka idinku helayana waxaa ka mid ah wada hadalladii heshiiskii Pakistan iyo Afghanistan ayaa lagu waramayaa gabi ahaanba in uu burburay kadib markii Pakistan ay Taliban ku hor dhigtay xujo adag oo ay ku doonayso haddii nabad waara la doonayo inay fuliso Taliban ta Afghanistan laakiin Taliban arintaasi gabi ahaanba way iska diiday cabsi halis badan ayaa halkaasi ka taagan qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doonto iyana waxaa ka mid ah wargeyska Financial Times ayaa qoray warbixin argagax leh taas oo la sheegay in dalalka Masar iyo Imaaraadka ay doonayaan mar kale oo ay u ololeynayaan in loo gacan geliyo Gaza Tony Blair maxay tahay danta ugu jirto in dadkaas reer Gaza Falastiiniinta Tony Blair oo ma aragtay godob weyn laga tirsanay gudaha bariga dhexe ay u dhiibaan macluumaad ayaan idinkaga diyaariyay Kenya waxa ka dhacday iyana sheeko yaab leh booliiska Kenya waxa ay xireen haddana ay tarxiilayaan isagoo waliba ooyaya nin u dhashay dalka Holland oo dharbaaxay booliiska dalkaasi sheeko yaab leh ayaan idinkaga diyaariyay arinta ku saabsan wargelin muhiim ah majaash soo dhawaada mar kale magacaygu waa Mustafa Ali halkana waa Kow Somali Media subax wanaagsan aynu ku bilowna barnaamijkeena aroornimo saakay Iran ayaa lagu waramayaa inay darsi lama filaana oo aysan iloobayn Israa'iil u dhigtay kadib markii ay qabatay markab muddo dhowr bilood ka hor markabkaas oo laga qabtay ama lagu qabtay xeebaha dalka Iran waxa la sheegay in laga lahaa Israa'iil waxana markabkaas la sheegay inuu lahaa nin ganacsada oo maalqabeena oo ka soo jeeda Israa'iil ninkan oo leeyahay El Offer ayaa waxa la sheegay inuu xiriir toos la lahaa maamulka Netanyahu kaliya uu sanahay muwaadin Yahuudiya markabkan waxa saarnaa xilligaasi muwaadiniin u dhalatay dalalka India Pakistan Philippines Estonia iyo kuwa kale haddaba Iran markay markabkaas qabatay way xirtay shaqaalihii markabkii mudday dacwadii socotay Israa'iil waxay il gaar ah ku haysay markabkaas iyo sida ay ula dhaqmayso Iran iyo go'aanka ay ka soo saarayso maalmihii hore Israa'iil waxay isku dayday baa la yiri in Iran ay ku eedeyso sidii burcadbadeed inay u dhaqantay laakiin Iiraaniyiinta ayaa la sheegay inay soo bandhigeen cadeymo cad oo muujinaya in ma aragtay markabkani uu waxyaabo sharci darro ah uu ka ganacsanayay ama ka adeeganayay oo markaa loo isticmaalayay si kasta ay noqotaba waxay maxkamaddu socotay maxkamad gudaha Iran ay ka furnayd ugu dambeyn waa la soo gabagabeeyay hadda waxaana lagu soo gabagabeeyay in markabkaasi sida kaliya ee lagu dhiibi karo isagay waxa saaranba ay tahay in El Offer maamulka Netanyahu ay bixiyaan 170 milyan oo dollar ayna sheegtay Iran in markabkaasi ay u leeyahay nidaam argagixiso ah oo ay uga dan leedahay Israa'iil waxay u diiwaan gelisay gudaha Iran Israa'iil inay tahay argagixiso taas oo maamulka Netanyahu magac cusub iyo sifo cusub oo ay la doonayso Iran ay noqotay Iiraaniyiinta hadda institutionadeeda iyo hay'adaheeda sharciga markasta Israa'iil u yeerayaan waxay ugu yeeraan inay tahay nidaam argagixiso sida darteed markabkan waxay yiraahdeen waxa lagu doonayaa 170 milyan oo dollar waa hadii la rabo markabka in doob loo celiyo ugu dambeyn sheekadii waxa ay soo gaartay hadda ilaa Israa'iil ay ka carooto oo ay sheegto in tani ay sababi karto dagaal aan dib loo dhigin oo aanan lagu kala harin oo qaadan kara bay yiraahdeen halis weyn oo bariga dhexe dhan saamayso waxaasada lagu waramayaa in Iran ay u aragtay markabkani inuu ku soo xadgudbay xeebaheeda suurtagalna aysan ahayn inay sii dayso waxaa la sheegay inay isku dayeen intii ay socotay maxkamadda markabkan waxaa la qabtay sanadkii 2024 hadda oo 2025 intaas
ilaa 7 bil waxaa socotay maxkamadiisa. waxaa marka cajiiba oo warbaahinta saaka aad ay u falanqeynayaan warbaahinta Israa'iil waxaa lagu yaqaanaa arrimahaas oo kale inay aad u falanqeeyaan oo uga hadlaan laakiin markabkan arrintiisa hoos baa loo dhigay ayaa la leeyahay xitaa warbaahinta kale reer galbeedka aad ugama hadlaynin. ugu dambeyn hadda waxaa si weyn u shaaciyay warbaahinta Carabta kuwa Iiraan ugu dambeyn ilaa xitaa kuwa Israa'iil ay qorayaan oo ay leeyihiin markab lagu doonayo $170 milyan waa lacag aad u badan. Iiraan marka waxay leedahay markabkani wuxuu sameeyay waxa loo yaqaan trafficking waxbuu maartay musuqmaasuq waxba oo maartay aan sharci darro ayuu qaadayay markabkan wuxuuna ku soo xadgudbay bay yiraahdeen xeebaheena. marka doodda waxay ka timid shaqaalihii saarnaa markabkaas. wadamada qaar shaqaalahooda waa loo celiyay wadamada qaarna damaanad qaad ayaa la weydiiyay inay soo diraan in aysan la lahayn cadeymo inay keenaan xiriir toos ah oo waxa lagu eedeeyay markabkani iyo nidaamkan argagixisada inaysan argagixisada xiriir la lahayn. Iiraan waxay loo dhaqmaysaa baa Israa'iil sida kooxaha adduunka argagixisa waa lagu eedeeyo oo kale. sheeko yaab lama filaan ah ayay ku noqotay maamulka Netanyahu. waayo saaxiibada qiimiga loo waxaynu toos ugu gudbeynaa qodobka xiga barnaamijka. xiisada ka dhaxaysa Israa'iil iyo Gaza ee reer Gaza weerarka ku socdo ayaa hadda waxa uu yeeshay wajiyaab leh kadib markii Israa'iil ay sheegtay ama maamulka Netanyahu inay diyaar u yihiin inay joojiyaan duqeynta iyo weerarada goobahoodiina ay dib ugu noqdaan oo ay duqeynta halkaasi ku hakiyaan. laakiin waxa ay ku xujeeyeen shuruud yaab leh ay arintaas ku xireen. waxay markaa hore ku sheegeen weerarka inuu yahay mid ay kaga argudanayaan Hamas iyo kooxaha kale dil loo geystay mid kamid ah askarteeda laguna dilay Rafah. laakiin Israa'iil waxa ay dishay 104 qof shalay oo kaliya. xalay ilaa isaakar waxa la sheegay Gaza inay ku dileen 2 qof inta ilaa hadda anaga macluumaadkeeno. laakiin sheekada liyaab kale ayaa waxa ay tahay dilka 2 qof waxa ka horeeyay qorshahan Israa'iil ay soo bandhigtay oo ay u gudbisay dawladihii damaanad qaaday heshiiska Sharm el-Sheikh. waxa ay sheegtay inay doonayso in Hamas hubka ay dhigto oo heshiiska wajigiisa labaad loo gudbo. haddii Hamas hubka ay dhigayso Gazana ay ka baxayso ay diyaar u tahay in gabi ahaanba heshiiskii sidiisii loo hayo oo macnaheedu ay ka dhigan tahay in Israa'iil doonayso in heshiiskii Sharm el-Sheikh sidii uu ku socday lagu hayo. hadalkan waxa uu ku soo beegmay xilli xalay ra'iisul wasaaraha dalka Qatar ahna wasiirka arrimaha dibadda uu sheegay in Israa'iil ay dayacday fursad weyn taas oo ahayd inay Hamas diyaar u ahayd inay wareegso maamulka Gaza. laakiin waxa aad la yaab u leh warbaahinta Israa'iil xalay waxay qoraysay in ra'iisul wasaaraha Qatar uu garab istaagay Israa'iil oo uu ku eedeeyay Hamas inay iyagu buriyeen heshiiska. inkastoo warbaahinta taas cagsigeeda ay qorayeen hadalka haddii la fiiriyo ra'iisul wasaaraha Qatar oo Israa'iil ku eedeynayay in ay hadda wado burintii heshiiska oo ay dayacday fursad weyn taas oo ahayd in ay dhaweyd in maamul loo sameeyo Gaza ka madax banaan Hamas iyo kooxaha kale laakiin gudi Falastiiniintu ay leeyihiin. haddaba sidee wax u socdaan marka Israa'iil horta hadda lama garanayo inay duqeynta sii wadi doonto inay inta ku ekeyn doonto laakiin Falastiiniintu waxay aad ugu careysan yihiin duqeyn dhinacyo badan. shalay waxa ay duqeysay koonfurta xalay waxay duqeysay waqooyiga Gaza oo ay 2 qof ku dishay ilaa saaka taas oo mar kale burin cad oo heshiiskii Sharm el-Sheikh. waliba kooxaha Falastiiniintu waxay eedeynayaan dawladihii waaweynaa ee damaanad qaaday in heshiiska la ilaalinayo iyaga qayb ka ahaa shirki ka dhacay Sharm el-Sheikh inay awoodi la yihiin inay Israa'iil toos u wajahaan halka kooxaha kale ee Gaza lagu eedeynayo inay iyagu buriyaan heshiiska markii talaabo yar ama weerar yar uu dhaco ama xitaa Israa'iil ay eedeyn samayso.